السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مدير كتب ونسكس الله. وحنو مهد علينا يا دمان ورالي لسوا حريري ويسوي دي وحيابها أنقبقا حنكم مقنع مشغول دنكي هذاي آوي وحن إذن يا دمانتين اسكسو نقط ونكسن فراها هرمركا وحن موقال كانوا وهدلي دونا فراها هرمركا متقانا فراها هرمركا سيدا نقنا يقف ولبا ودوني ذا القنو حو جعلي هاي إنو قارو قول وحلا طابان كارو أو حقيجيو هدف كيسا balse waxaa loo baahan yahay sidaan hadafkeena u hiigsan lahayn inaan la imaano wadadii saxda ahayd ee aan u gaari lahayn hadafkeena sidaa darteed waa inaad yeelataa qorshe hadaf iyo ful hadda bal qiimee inta uu leeg yahay hamigaagu mar haddii aad tahay qof hiigsanaya meel sare oo ay ku caddahay waxa aad haminayso waxaa lagaaga baahan yahay 5 qodob oo waaweyn qodobka koowaad kalsooni inaad naftaada ku kalsoon tahay si fiicanna u taqaanid oo aad garanayso waxa ay qaban karto iyo waxyaabaha aysan ku fiicnayn si aadan u qaldoomin oo aad toos uga aado meesha ay ka soo bixi karto qodobka labaad jeclaanta horumarka inaad leedahay dareen xooggan oo aad u qabto horumarka dareensan tahayna in ay wax ka maqan yihiin oo aad tahay qof u taagan gaarista waxa ka maqan ama soo qabashadooda una martaa meel walba ay kula gasho oo aad leedahay dareen garasho sida inaad aan karto meesha ugu dhow oo ay guushu ka jirto kadibna aad raadiso wixii ku suurtagelin lahaa iyo sidaad uga miro dhalin lahayd intaba qodobka saddexaad dhiiranaan inaad leedahay dhiiranaansho inaadan waxba ka baqaynin sida inaad guul daraysato oo aadan ka baqin guul daro aadna niyadda ka saarto cabsida tahayna qof aaminsan qadarta mar walibana u taagan sidii uu u meelmarin lahaa waxa uu hiigsanayo muujisaana xiise badan inaad u hayso guushaada noqotaana mid karti badan oo aan ka daalin hawshiisa qodobka afaraad doorashada wadada inaad leedahay karti aad ku kala dooran karto wadada aad u mari lahayd horumarkaaga waayo mararka qaar waxaa jiri karto inaad ku qasbanaato kala doorashada laba wado taasna waxaad uga baxsan kartaa kartidaada iyo meesha sare uu hamigaaga gaarsiisan yahay qodobka shanaad la saaxiibada qofka sareeya inaad la saaxiibto dadka ka aqoonta badan ka himilada sareeya si aad ugu dayato oo aad ugu kororsato wixii ay ka dheer yihiin oo waayo aragnimo iyo aqoon intaba ah markasta oo aad la nooshahay ama aad wax la wadaagto dad hami sare iyo hadaf leh waxa xaqiiqa in adigana aad noqonayso iyaga oo kale balse markasta oo aad la saaxiibto dadka aan fikirin hami sarena aan lahayn iska nool iska socda waxa xaqiiqa oo cad in aad la mid noqonayso waa inaad noqotaa sida qof tartan ku jira oo kale ka dheeraataa dadka aan horay u socon oo gadaal u socodka lana tartantaa oo la xiriirta dadka horumarka gaaray la saaxiib ugu yaraan qof xitaa fikir kugu dheer ama kaaga sareeya waxa hubaala in noloshaada wax ka bedeli doono ama meesha aad taagan tahay ka dhaqaajin doona sababtoo ah horaa loo yiri qof walba waa saaxiibkii ugu dambayn waa inaad ku cadaadisaa naftaada sidii ay horay ugu socon lahayd markastaba haka daalin hana ka baqin magacaabista hadafkaaga iyo ku celcelintiisaba ogowna inaadan weli gaarin meeshii ugu saraysay uguna qiimaha badnayd ee aad hiigsanaysay markasta sii raadi meesha aad joogto meel ka sii sarayso qofka hamiga fog waa kan miisaamo naftiisa kana warhaaya meesha ay marayso oo fikir wanaagsan iyo dadaal isdaba joog ah wado isagoo tala saaranaya rabbigiisa ceeb maaha guuldarada ama fashilka balse waxaa ceeb ah in gacmaha aad isa saarato oo aadan lahayn wax qorshaha iyo hadaftoona aadan waxba isku dayin ahaw mar waliba qof hami fog leh hiigsana meel hamigaaga ka fog si aad hadafkaaga u gaarto intaan ayaa idinkugu talagalay inaan idinla wadaago maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu